السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. si lafaha bini'aadmigu ay u noqdaan kuwo caafimaad qaba oo si fiican u korana waxay u baahan yihiin faytamiino iyo macaadin ay ka mid yihiin kaalshiyam, magnesium, fosfoor iyo maadada kollaajinta iyo kuwo kaleba. Waxaana jira waxyaabo aad ka heli karto maadooyinkan iyo kuwa kale ee lafuhu u baahan yihiin. Waxyaabaha aad ka heli karta maadooyinkan iyo kuwa kale ee lafuhu u baahan yihiin dadkana lagula taliyo inay isticmaalaan waxaa ka mid ah lowska oo qani ku ah magnesiumta iyo macaadin kaleba. Kalluunka, gaar ahaan nooca la yidhaahdo salmon, wuxuu qani ku yahay faytamiin D-ga, waana faytamiin aad ugu muhiima lafaha. Caanaha oo ay ku badan tahay kaalshiyamtu ayaa iyaguna laf-dhabar u ah caafimaad qabka lafaha iyo korriinkoodaba. Waxaa kaloo iyaguna u fiican caafimaad qabka lafaha liin macaanta freeshka ah iyo muuska iyo dhammaanba khudaarta cagaaran. Ilaahayna waxaynu ka baryaynaa inuu ina waafajiyo wax kastoo ina anfacaya aakhiro iyo adduunba.